Maalin ayuu fadhiistay meel suuq ah, gabar yar oo kabaha casayda ayuu la sheekaystay wuxuuna weydiiyey ma jeclaan lahayd inaad la kulanto boqorka. Gabadhii waxay ku tiri, boqorku wuxuu ku jiraa qalcad dahab ah, annagana waxaan ku jirnaa baahi iyo ba'. Muxuu noo faa'iidayaa? Boqorku wuu naxay, ilmo ayaa ka soo daadatay indhihiisa, wuxuu bartay runta. Dadku ma jeclo magacaaga ee waxay jecel yihiin ficilkaaga. Boqor Salmaan wuxuu dib ugu laabtay qalcaddiisii, asagoo qalbigiisa burburay. Wuxuu isugu yeeray dhammaan wasiirradii, wuxuuna yidhi, wasiirka iga been sheegay wuu tagayaa. Cidda u baahan wax waa inaan u tagaa. Lacagta ku kaydsan qalcaddana waa in dadkayga loo adeegsadaa. Wuxuu furay maqaayado bilaash ah oo dadka saboolka ah cunaan. Wuxuu dhisay isbitaallo, dugsiyo, wuxuuna joojiyey canshuuraha dadka danyarta ah. Boqor Salmaan markii uu gaboobay waxaa la weydiiyey, boqorow, maxay ahayd maalintaadii ugu farxadda badneed? Wuxuu ku jawaabay, maalinta aan noqday qof aan la garanaynin oo gabar yar ay ii sheegtay xaqiiqda. Wuxuu dhintay asagoo ay dadkiisa u baroordiiqayaan, sababtoo ah wuxuu noqday boqorka dhabta ah. Kii qalbiyada hogaaminayay ma ahan kan keliya kursiga saarnaa. Xigmada sheekada: hoggaan wanaagsan ma ahan kan amarka bixiya, waa kan maqla, la fadhiya, la nool dadka uu hogaamiyo.